mar haddii jiif caaqilkii uu ciidan ku soo heeseeyey Hargeysa annaga ciyaalkeega odayaashayada dumarkayaga dhammaantood ma noqonayaan teeraadeero xabadda lagaga gabado. qaar ka mid ah salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradka Soomaaliland ayaa ka hadlay sidii loo adkeyn lahaa nabadda iyo sidii meel looga soo wada jeesan lahaa cid kasta oo u dhimaysa nabadda shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay haystaan. waxa ay sheegeen in waqti xaadirkan loo baahan yahay sidii meel looga soo wada jeesan lahaa arrimaha nabadgelyada. salaadiintan oo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladoodii ka mid ahaa mar haddii jiif caaqilkii uu ciidan ku soo heeseeyey Hargeysa annaga ciyaalkeega odayaashayada dumarkayaga dhammaantood ma noqonayaan teeraadeero xabadda lagaga gabado. waxa weeye Hargeysa ma noqonaysa teeraad ciyaalkayga ka dhiganaysa. dagaalkii hore ee 94 ka dhacay ayaan ogeyn wixii naga gaadhay. carruurtayadii baa ka habsaantay iskuuladii macaamadii ganacsigeeyagii baa ku baaba'ay nin walba isagoo maanta mudhabu halkaa ka baxay. maantana ma ogolin baan ku leenahay wararka jabhadda sheeganaya fulayaasha ah ee aanu iskaranayno ee hebello badan leh ee ilaa ceerigaabo ka soo socda Hargeysa ku soo socdow Hargeysa rag baale waa la kala baqan doonaa dilka la xisho waayo waxna ka dhici maayaan wax ka dhacaya ma jiro annaga joogna. waxaan u sheegayaa xusbiyada iyo xukuumadda dadkan amba Soomaaliya ha noqoto amba Hargeysa ha noqotee waxa hooyaya aabow aan nabadda hooyaya aabow ha nabadda ninka nabadeeda ku ciyaara ninka nabadeeda u dulqaadan mayno. saddexda xisbi iyo madaxweynaha waxaan leeyahay dalka adaa xukuma dadkana mid mucaarada iyo mid muxaafida adoo madaxweynaha dhammaan adoo madaxweynaha mid kula taliya iyo mid ku xamanayaba adoo madaxweynaha waxaanu leenahay annagu waa shir nabadgelyo isxaaq baanu nahay haddaad nabadgelyadu waxay ku dhammaanayso qabato haddaanu isxaaq nahay adaanu ku taageersanay waa ku berber taaganahay. nabadgelyadu nin walba wuu dan xusbiyada iyo waxa kale waa laga jawaabaa aanu ka jawaabi maayo. anigu waxaan leeyahay waar nabadgelyadayna wadadana aan qaniisanaano. waxaan ka hadlayaa nabadgelyadeena beelaha Soomaaliland inay wada guntadaan inay waran cadda miidhan keenaan in nimankii la dhexdhexaadiyo la soo wada fadhiisiyo xukun cid la saaro ama mucaaradka ha la saaro iska tagan la yiraahdo ama madaxweynaha wax qaba ha la yiraahdo xukun in la saaro amar la saaro ayaan doonaynaa la isu wada yimaado. war waxaan leeyahay xigaal baynuna ninba meel buu kacayaa dadku meel iskuma wada raaco laakiin dadnimada iyo danteena guud yaan loo kala tagi dan bay naga dhaxaysay danta guud yaan laga tagi. waxa wax lagu kala helayaa doorasho iyo colaad waxba lagu kala heli maayo. ilmaadeerayaal waxaanu annagu taageersanahay nabad nin kasta oo kursiga hunguri kaaya inuu nabad ku doonaa baanu taageersanahay. madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne waddanka adigaa ka mas-uula ragga cabanaya haddii ay gardarro ku cabanayaanna reer Soomaaliland iyo waxa arki doonaa aqoonyahanka hadday gar ku cabanayaanna waxa arki doonaa aqoonyahanka. waxaanu se madaxweyne ka codsanay miiska wada hadalka nimanka inaad u fariisato duqii Soomaaliland baa tahay oo nin walba qanciso. sidaynu ognahay xisbiyadu waxay u tartamayaan kursi bay u tartamayaan oo cod bay ku tartamayaan. beelaha reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay nabadgeliyo ay ku tartamaan waayo nabadgelyadu iyadoo inaga ku nool iyadu inaguma noola. maanta Hargeysa dad fara badan baa degan dadkii deganaa waxaanu ka rajaynaynaa in iyaguna sidan oo kale ay noqdaan oo shirarkani aanay noqonin qaar go'ay ay noqdaan qaar istaba socda ilaa maayo inta xurugufaha jira ay ka dhamaanayaan waayo wax walba carab baa lagu saarayo cudub la isqabsado iyo midnimo. waxaan walaalanahay nabadgelyada oo hooyiya aabba annaga noo ah. walaalayaal waxaan leeyahay labada xusbi wax cadaalada oo sharciya ku dooda madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne dalka adiga ka madaxweynaha